السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan rabnaa inaan wareysi ka qaadno Ustaad Cumar oo ka mid ah ducaada wadanka Mareykan khaasatan stateka Washington magaalada Seattle Washington. waxaan maanta rabnaa inaan ka wareysano waxyar Sheekh Cumar waxyar hadda idinkaga hadlo waa ducaada ugu weyn magaaladan hadda joogto oo masaajidada khudbadooyinka ka akhriyo salaadaha ciidda ninka laga waco masaajidada khudbada markii khudbayaal muhiim ay jiraan la waco marka maxaan rabnaa maanta inaan waxyar ka wareysano hadduu ilaahay idmo oo waqti noo siiyo dhalinyarada oo la shaqeeyo maxaa u sababay inay dhalinyarada masaajidada kusoo xirmin waa su'aalo badan la iska weydiiyo ama markaa masaajidada tagteed ma lagu arko dhalinyaro ku xiran masaajidada ama u khidmeynaya masaajidada ama ducaada ka mid ah sida isagoo kale waa nin dhalinyaro ah masaajidada meel walba uu ku jiraa laakiin maxaa keenay inaysan dhalinyarada ka mid ahayn ducaada masaajidada joogto waa halka waqti kaliya la arka dhalinyarada waa marka salaada taraawiix ay tujinayaan 2 iyo 3 joogto inta kale maalmo bis ay imaadaan marka maxaa isleedahay Sheekh Cumar adoo wax badan la soo shaqeeya dhalinyarada oo soo arkay wax qabadka dhalinyarada leeyihiin waxay bartaan wax walba soo kordhiyaan laakiin maxaa keenay inaysan dhalinyarada ku soo biirin masaajidada aysan waxna ugu qabanin alxamdulillah aad ma santahay barnaamijkan waa barnaamij muddo sanada aan ka fikirayay su'aashaas aniga waa isweydiiyay nasiib daro masaajidda badan xataa intaan tagay ayaan kala hadlay dadka maamulka oo ku dhahay sidee ku dhici kartaa in dhalinyaro intaas la eg oo masaajidada qaar dhex fadhiyaan nambarkooda xataa aan ku qiyaasi karo ilaa 50 dhalinyaro ah qaarkood xataa kubadda cagta tiimam ay ku jiraan soo ciyaaro masaajidka imaado sida salaadaha jahriyada oo kale maqribka oo kale ama cisho oo kale masaajidka ayaa wuxuu u noqdaa mararka qaar meel ay yani ku nastaan ama ay ku baashaalaan laakiin nasiib daro waxaa dhacaysa in dhalinyaradii fursadda u heshay inay masaajidka imaadaan in ay heli waayaan aqoontii ku saabsanayd diinta islaamka iyo soo dhaweyntii looga baahnaa dadka maaragtay maamulka marka waxaa dhacaysa in dhalinyaradii shalay aad ku arkaysay masaajidka oo masaajidkii dhex joogay salaada ku tukanayay in berito aad ku aragto ayagoo wadooyinka taagan ama daroogista ama daroogo cabayo ama ma aragtay aad ku aragto xabsiyada aad yani ogaato inay ku jiraan amaba aad ku aragto inay kamid yihiin dhalinyarada wax ka xada dukaamada kale ama dhalinyarada dadka dhibaateeyo ama yani gangsterka ama wax xun sameynayo dhalinyaradii marka adaaba yaabayaba adigoo qof muslina oo Soomaali ah qof aad shalay taqaanaysa haday sheegto kala dhalinyarada oo salaada taraawiix tujinayso kale qaarkood sanadkan taraawiix duu ku tujiyay sanad dambe waa nasiib xataa inuu islaamnimada ku sii jiro ama ma aragtay uu masaajidada ag joogo taana waxa keenaysa dadka maamulka masaajidda hayo oo qaarkood intooda badan aan wax kale aqoonin let's say diinta ay soo barteen luqadna kuma darsanin oo Ingiriis ah cilmi kale oo maadi ah kuma darsanin marka ninka masaajidka fadhiya nin walba ahaadaba xataa PhD ha wato ama master degree ha wato oo dhan diina haduuna haysanin skills kale ama xirfad kale wuxuu aaminsan yahay irsaaqada kaliya Ilaahay u qoray inay ka soo baxayso masaajidka saadaradeed waxa ogaanaysa marka ninka masaajidka fadhiyo wuxuu leeyahay hadaa dhalinyarada soo saaro ay wax ugu bartaan number 1 luqadii yaqaanaan number 2 waxay noqonayaan dad fiican oo wax barto oo maadi aado maxay cunuga haduu diinta iyo masaajid ku soo xirmo waxaa inta badan dhacda inuu successful nolosha ka noqdo oo waxbarasho fiican aado laakiin marka uu nolosha ka dhacayo waa mar uunan waxbarasho fiican haysanin leadership ama guidance ama mentorship una haysanin dad caawiyo oo hago una haysanin marka waxa dhacda in dhalinyarada wiilashaas marka ay masaajid ku xirmaan imaamku waxa galayso ama dadkii masaajidada maamulka ah cabsi ah haduu wiilkan soo baxo oo maamulka uu ka mid noqdo berito dadka asigay dhageysanayaan adiga laguma dhageysanayo maxay luqad ma taqaan dadkii asigay u wada badanayaan oo kutubtiisa la dhageysanayo adiga waxba laga ma dhageysanayo marka cabsi noocaas ah ku jirto kadibna waxa soo socoto uu ka baqaya berita ninkana imaam laga dhigaya adiga imaamnimadii waxa waa ka dhageysaa marka cabsidaas aan ku arkay imaamyo badan iyo dad badan oo masaajidda maamulkooda hayo ayaa waxay keentay in ay dhalinyarada iska fogeeyaan iska riixaan waxa laakiin nasiib daro ah ayagoo dhibaatada dhalinyarada arkaya every single day qaarkood xataa ilma ayaga ay dhaleen ama ay qaraabo yihiin ama ay yaqaanaan saaxiibadood dhaleen ayaa ku jira suuqa oo ciyaalka maaragtay nolosha ka dhacaya haddana
in ay waqtigooda nolosha qayb ka mid ah ay u huraan inay dhalinyaradaas caawiyaan ma laga yaabo. waxaan la yaabay marka aniga baaritaan badan baa ku sameeyay dhowr yani 10 sano aan arrimahan ku dhex jiraa dhalinyarada. waxaa igu yaabka badnaa masaajidada ka mid ah qurbaha ku yaala igaraan noqo mawduuca waa mawduucaada aan u xiiseeyo dhalinyarada. yani waxaa masaajidka marka Mareykanku ku yaala ma sheegayo gobolka iyo waxaas, laakiin waxay leeyihiin meel lagu ciyaaro basketball. marka dhalinyaro ayaa ishagtay oo isdiyaarisay oo dhalinyaro badan oo maaragtay arday ahayd waxa dugsiga dhiganayay ayay dhalinyaradii macallimiinta ahaa ay u qomeen ama u istaageen inay dhalinyaradaas soo ururiyaan intay wadooyin iyo meelo xun tagi lahaayeen. marka meeshii masaajidka ahayd ayaa waxay bilaabeen in ay ku ciyaaraan kubadda basketballka habeenkii si dhalinyaradii salaadihii u tukadaan, waqti loola qaato, diintii la baro, wax loo sheekeeyo. adiga ay dadkii waaweynaa ay isxilqaameen dhalinyarta oo Mareykanka ku koray. waxaa dhacday maamulkii ayaa waxay ku yiraahdeen maadaama aad rabtaan inaad isticmaashaan basketball courtka waa inaad lacag bixisaan bil walbo si aad u isticmaashaan courtka. ayagoo community masaajidkeena caawinayaan, dhalinyartii caawinayaan, waxay ogolaadeen inay lacag bixiyaan. waxay sheegeen lacag 900 meelahaas oo kale inay bixinayeen weegi ama bishii 900. ma ii sheegin ani ma xusto laakiin exactly lacag ay bixinayeen. adiga maalinkii dambe ayagoo ciyaarayo ayaa inta loo imaaday nalka laga damiyay. u fiirso, nalka laga damiyay. nalkii marka laga damiyay ayaa waxay yiraahdeen maxaa nalka nooga damisay lacagaa baxsanaa anaga. markaas wuxuu yiri lacagtiina naguma filna, lacagtaa bixinaysiin naguma filna, leerkan lacag badan noo keenaa saa darteed we don't care. bas habeenkii waa ku kala tagnuu yiri. maalintii dambe waxa uu tagu yiri